dhammaan marti sharafta reer Lagdan inta dibadaha ka timi waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaamta islaamka kadib waxaan u mahadnaqayaa abaabulayaasha hirgeliyey ama inoo diyaariyey madashan quruxda badan leh aynu caawa ku kulanay, taasoo ujeedadeedu ay tahay sidii cali sheegayba in lagu daafuro marka horeysa waa koow ururka hadaf. haddaan ugu horeyn idin guud maro ururka hadaf wuxuu ka aasaasmay qayb ka mida qaybtan xiriirka dadweynaha ay ku xidhiidhaan social network-ga taasoo la yidhahdo facebook markaa waxaan umalayaa dadka badankiisu way isticmaalaan iyadoo arrinkan uu yahay arrin in si iskaa wax u qabsaa dadku ay deegaanadooda ama dadkooda heer qaran iyo heer deegaanba wax lagu qabto. tani waxay kaga yara duwan tahay maadaama inta badan kulankan lagu kulmo kulanka facebook dadku ay isisalaan iyo asxaabnimo iyo hawlo isaga badan ee madadaalo ay u isticmaalaan, ayaa waxaan jecel lahay inaanay noqon markii u horeysay. sidoo kale waxay nala noqotay maadaama fursadda intaa leeg aanu helay shucuurta intaa leeg ee isku dal ah ee isku deegaan ah inaan uga faa'iidaysano, maadaama dalkeenu waxyaabaha uu ku taagan yahay ay ka mid tahay dadkeenan aynu ka mid nahay korkojoogu inay gacan ka geystaan dhinacyada kasta hadday tahay caafimaadka, waxbarashada. marka sababta aanu sida gaar ah munaasabadan caawa oo nuxurkeedu yahay inaynu kusoo bandhigno lacag loogu talagalay ama lagu caawinayo si tabarucaada wadada deegaan ka mida deegaanada Somaliland, gaar ahaan kasiimada deegaan ay ku abtirsadaan dadkeena caawa halkan isugu yimid, taasoo aynu kala mid nahay dadweynaha kale aynu isku nahay reer Somaliland. oo sida dalkii iminka ka socota la arkay maadaama dalkii ay joogto dowlad waxna qabanaysa dad wixii wax qabaday ay la yimaadaan oo wax ugu daraysa, waxay noqotay markaa aanu istusnay maadaama fursadda ay isu helay dadka intaa leeg oo aanu nahay dad ka soo kala jeeda deegaanada sida bariga saaxil, galbeedka Sanaag, Togdheer, Sool, Saraar. waxay noqotay marka maadaama hore dadku guud ahaan iyo gaar ahaanba deegaanada dalka cid waliba ay gacan uga geysanaysay, hadday tahay middan guda hadday tahay middan gaar ah, oo maanta ay hubaan tahay intiina halkaa fadhida iyo in badan oo inaga maqan oo wax ku darsatay. aananu rajaynayno intaa hore wax ku darsanin inay dib uga qayb galaan, hadday tahay kan aanu wadno ee aan caawada afuran ee hadaf, hadday tahay kuwii hore u jiray oo iyagana aanu si gaara ugu mahadnaqayno hawlaha ay isxilqaameen aan anaguna iyaga kaga dayanay jecelahayna inaan kuwoodana marka ay noqoto aanu wax ka geysano, horena aanu uga geysanay kaayagana aanu soo dhaweynayno. intii hore waxay uga geysatana aanu mahadnaqayno, inta dambana aanu ka filayno inay gacan naga siiyaan. haddaan markaa usoo noqdo sababtii aan u doornay inaanu dhaqaalahan u horeeya waxqabadkii ugu horeeyey ah aanu deegaanka wadada bariga Berbera Anraribo wadadaasoo ay gacanteeda ku hayaan guddida halkan iminka ay nagala hadlayay ee jeclaa inay nala hadlaan, hadday isuukeen xidhantana ay nala hadli doonaan. guddidaasi waa guddi aqoon-yahana oo ka kooban daljoog, dibadjoog, dhakhaatiir, injineero leh. guddidaasi waxay maanta ku hawlgalayaan ay halkaa ay soo gaadhsiiyeen waxa ay qabteen ay wax ku qabteen waa dadkeenan caawa halkan jooga in inaga maqan oo kaloo fara badan iyo in kaloo waddanka gudihiisa joogta. markaa guddidaasi waxay noqotay inaanu annaguna caawana halkan fariintooda aanu ka gudbino wixii aanu annagu haddaanu nahay facebook ahaan gruubkeygii Mustambeed magaca la yidhahdaan ku aasaasanay sidaa ku aasteen kaalin caawana waxaanu garanay maadaama dadku iyagoo guryahooda kala jooga oo shaqooyinkooda kala haysta haddana aanu suurto gelinay
inaanu waxqabadka intaa leeg ee hantida intaa leega $10,000 aanu ku ururino annagoo hawlaha kala wadano waxaan isla garanay innagoo qof waliba gurigiisa fadhiyo haddaynu sara joogsanay inaynaan sara joogga ku joogin aynu dhaqaaqno marka hadaf caawa ujeedada loo daafuraya waxa weeyaan waa dhaqaaq in la dhaqaaqo oo halka maanta inta u yara la qabtay ay tahay waxa u yara la qaban karaya inaanu ka sii badino oo aanu waliba soo dhaweynayno iskaashi aanu noqono dalad guud oo kulmisa ururada hore u jiray sida xaad oo kale sida gaaf oo kale iyo inta magacyadooda iga maqayna aan xusi karin magacyadooda dhammaantood inaanu intii suurtagal ah wixii la isla qaban karo la isla qabto tan guudna la wado horumarka intaa leega waddankeennii ka socda gacan laga geysto tan waddada runtii waa ka dheregsantihiin barnaamij baa laga diyaariyey TV-ga qaranka gacan ka geystay gudida horumarinta ee si xilqaamay waddada gacanta ku haya ayaa suurtageliyey barnaamijka waxaa la yidhaahdaa dal qarsoon iyo duruufaha ku xeeran dadku nool sababta markaa aanu doornay anuu shaksiyan haddaan idinka warramo waxaan daawaday clip video ah waa 29 daqiiqadood videogaasi waxaa ka hadlaya maxamed ibraahim warsame hadraawi hore walanwal injineer faarax inda maxamed jaamac dr axmed xaaji xasan xawad waxaa kaloo ku jiray jamaal xinwaal waxaa ka mid ahaa dr cabdi yaasiin dhammaantood waxay dirayeen baaq ay waddadan in la soo caawiyo ama gacan laga geysto baaqa ciday ku socotina waxay ahayd dadkeena marka caawa idinkoo mahadsan soo ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan xafladda waxaan ugu talagalay inaanu dadkana ku dhiirigelino annaguna aanu ku daafurno ururkayaga oo intayada uu kulmiyey iyo in badan oo kusoo biiri doontaba aynu halkaa kasii aanbaqaano waxaan jeclahay hadalka mala waan badiyey rag kaloo iga dambeeya hadlaya qaybaha wixii aan ka tegay ku daraya laakiin nuxurka anigu waxaan u hadlay wuxuun bay ahay inaan idii faahfaahiyo sababta aan u dooranay inaanu kaalmada u horreysay aanu ka geysano waddada waan jeclahay intiina aydan aragna caawa ogaan doontaan intii aragtana ay og tahay baahida ka jirta iyo cidda looga fadhiyo marka laga yimaado dowladda ay waajibkeeda tahay cidda looga fadhiyo oo waddadana ay dhiggeeda tahay marka laga yimaado waddada burco xerigaabo heer qaran lagu dhisaayo dowladduna gacanta ku hayso innaguna aynu gacanka geysanayno laakiin waddada dhiggeeda ah waddada burco oodweyne hargeysa waddada salaxley hargeysa waddada balyoguwadle hargeysa waddada dowgacad iyo waqooyiga hargeysa iyo xeeb intaasoo waddo ayay waddada dhiggeeda ay tahay dadka ay sugaysaana waa intayna caawa halkan joogta iyo in badan oo inaga maqan marka waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa intiina noo suurto gelisay intiina nala joogtaa inta naga maqanba inaanu caawa munaasabadan aanu ku soo bandhigno annagoo lacagtii maanta ay gudida gacanteeda ay ku jirto lacag $10,000 oo aanu ku ururinay aaladda loo yaqaan Facebooka taasoo hore aanu dhici jirin hadday dhacdayna waxaa laga yaabaa inay dadku intay sidana oo kale aaladahan lagu xidhiidhkan bulshada waxaan lagu isticmaalo inay wax qabtaan wixii ay qabteen ay gaarsiiyaan halkii loogu talagalay laakiin annagu waxaanu doonaynaa sida halkaa ku xusun hannaan cusub iyo himilo waata hannaankaas cusub oo ah aaladii ahayd social network caadiga aynan u bedelo inay dadku wax ku qaban karayaan taasina aanay noqon mid ku ekaata waxqabadkana caawa halkan ku sheegayno ee noqota mid daa'iman ah waxaanay ku hirgelaysaa iyadoo loo hagar baxo daacadna laga ahaado la iskula tiirsanaado haddaynu nahay dadyago ku abtiirsada deegaanada ka mida dalka Somaliland ee aan ka soo bilaabay saaxil bari togdheer galbeedka sanaag sool iyo saraaba markaa waddadaasi mustaqbalka waxay furi doontaa albaabad badan oo aynu kaga maarnaba qurbaha dadkeena tabcay ee ilaahay ku garab galay tacabkooda dhul baa ilaahay siiyey dhulkaasi wuxuu u baahan yahay waddo in la furo oo innaga iyo kuwa ku noole duruufta haysaba aynu u furno idiidada si iyaguna gudaha iyo ugu xigmaan adeegii dowliga ahaa iyo kii nololeedba innaguna aynu mustaqbal aynu ugu hirnaa in meeshii inooga muuqato markaa iga raalli ahaada hadalkii waan badiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم. جودي دعوة شكرا لنوسو أبهم شيء هبلها إيو dhalinyarada cuslaatay aan ka mid ahay iyo horta sharafta guud ahaanba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka waxaan u malaynayaa wax runtiiday inuu halkan hadal badan u bixin waxaan jeclahay inaan hambaliyeeyo hawshan quruxda badan ee runtii milihii u horreysay caawa midho dhashay ee lacagta qiimaha leh halkan laynooga sheegay ay soo ururiyeen intii kala qayb qaadatay intii fikirka lahayd intii la dadaashay intii la shaqaysay runtii aad iyo aad baan runtii hambalyeynaya waxaan runtii istaahilaan inaynu waxyaabaha caynkan oo kale aynu aada u soo dhaweyno aadna ugu taageerno dadka howlahan oo kala wada had iyo jeer marka fikrad la keeno dad badan baa si kale u arka dad badan baa carqaladeeya laakiin markay midhaha dhasho iyuunbaa waxqabadkeeda runtii ay rasmiga ay runtii muuqdaan waa runtii hoos baa dadka ka sheekeynayay waddadan dhulka ay maraysaa runtii waa dhul aad iyo aad runtii dhibaato badan ka taagan tahay waa deegaan aada u ballaaran waa deegaan aad wada runtii sidaa ceerigaabo oo kale ka xidhnaa runtii dalka somaliland intiisa kale laakiin iminka dowladdan intay timi la dareemay loo soo jeestay waxa la isleeyaha laga qabto marka inaynu inaguna qeybteena qaadano inkastoo malaa inaynu markii xukuumaddu dhalatay la bilowna waanu ahayn laakiin haddana weli it's not too late weli annagu TV qaran ahaan waa runtii sidii hoos sheegayay barnaamijyaal laga soo daway runtii loogu talagalay in runtii dadka lagu wacyigeliyo iminkana waxaanu doonayaa inaan halkaa kasii wadno kolley waxaan ka codsanayaa guddida halkan fadhida inay mar kale TV-ga noogu timaado cid soo qoondayso oo aynu dadka ka wacyigelino oo hawsha aynu halkaa kasii wadno oo inta aynu ka gaarsiin karno haddii ilaahay ka dhigo inta xukuumaddani jirto waxqabadka u taagani aynu runtii intaynu ka qaban karno aynu ka qabanno haddii ilaahay ka dhigo wixii tusaale ah wixii tala ah wixii aa u baahan tihiin wixii TV-ga uga baahan tihiin gudaha iyo dabaddaba kolley anagu diyaar baan idin leenahay haddii ilaahay ka dhigo iyo wixii kale dee aan kaa kolley anagu dhaqaal ahaana Facebook-ina kuma jiro laakiin wixii ay kusoo xukuntaan diyaar baan ahay oo ka qayb qaadanaya insha allah saasaynu isku ognahay marka runtii aad baan guddida loo hambaliyeynayaa aad baa mahadsantiin raalina iga hado assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحين السلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا المطر بني ولا السلام يا سلام بعدي وحناد بفرح أحسنها يوقتين كسو قيب قلو فرحة حفلة قروح للبلان نوقف صنطة عاوة يدو نقول إيسا حفلة الجوه الرئيسي إنه الرهان هرجلنا هتين النهاية أركم مستنبت هذا عاوة نقوم قلنا مقع هدف waxaan marka hore iyana u mahadnaqayaa guddiga ka soo shaqaysay xafladan ee waqtiga qaaliga gelisay ee dadaalka badan samaysay ee qabanqaabisay iyo sahashayna xafladan shaqayso waxaan iyana doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladda waxaan iyana u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay mashruucan wadada bariga berbera oo ah mashruucii ugu horeeyay aynu hirgelino urur ahaan iyagana waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo halkay lacagtaa ka soo saareen ilaahay wax khayr ugu bedelo walaalahay wax badan odhan maayo dadka hadlayaana waa badan yihiin kolley intii badnaydna guddoomiyaha yidhi laakiinse waxaan ka hadlaya laba kelmadood oo sidaan ku furnay ururkan gaar ahaan barta Facebook ee social media walaalayaal sidaad la socotiin dadkiina ka soo jeeda deegaanada bariga Somaliland aad ayaynu ugu badannahay qurbaha inagoo kala joogna adduunka dacaladiisa sidaad la socotiin waxaa jira ururo yaryar oo horumarineed aynu leenahay laakiin ay meesha ka maqan tahay tii guud sidaas daraaddeed waxaanu go'aansanay inaan furno goob barta internetka ah oo la isku keeni karo dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada bariga Somaliland gaar ahaan gobolladii saaxil bari togdheer saraar sanaag iyo sool iyo hawdka Itoobiya kadib waxaanu ku guuleysanay inaan furno ururka lagu magacaabo Mustambeed
barta internetka iyadoo aan caawa halkan ugu wanqalayno magaca hadaf oo u taagan magaca Horn of Africa Development Alliance Foundation iyadoo hadda aan iskugu keenay hadda barta internetka dad gaaraya ilaa 400 oo qof oo kala jooga adduunka dacaladiisa iyadoo ay noo sahashay isgaarsiinta casriga ee Facebook walaalayaal fikrado iyo wada tashi dheer iyo doodo badan ka bacdi waxaanu isla qaadanay inaan ka qayb qaadano dhismaha laga wado bariga magaalada Berbera gaar ahaan wadada gubanka ee gobolka Saaxil wadadaas oo hadda gacanta ku hayaan dad ka soo jeeda deegaanadani oo kaligood xilqaamay iyagoo aan ugu deeqayno lacagtaas ku soo ururinay oo caawa halkan ka shaacinayno lacagtaasoo siduu sheegay gudoomiyuhu lacag gaaraysa $10,000 Mareykanka ah aan iskugu keenay barta internetka sidaad la socotiin dadka ku dhaqan deegaanada gobolka ama bariga gobolka Saaxil waa dad ku nool dhul aad iyo aad u adag oo iskugu jira buuro iyo dhul saxaara ah oo aad u kulul oo go'doon si fudud aan lagu tegi karin sidaas daraadeed wadada bariga gobolka Saaxil waxay isu furaysaa dhul aad iyo aad u fara badan waana deegaan aad u muhiim ah oo u baahan wax laga qabto mashaariicda aanu doonayna inaan ka hirgelino deegaanada gobolada bariga Somaliland kan kuma eekaan doono laakiin waxaa loo qorshaysan urur ahaan inaan goobo badan oo u baahan wax laga qabto inaan wax ka qabano intii taalkayga walaal mashaariic badanna waa loo qorshaysan tahay sida loo kala baahi badan yahayna wax waan ugu qaban doonaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ka soo jeeda goboladan ee jecel horumarka deegaankooda inay nagu soo biiraan urur ahaan iyagoo nagala soo xiriiri karaya emailka aan caawa ka shaacin doono ama barta internetka aan ku leenahay Facebook ama dadka memberska ka ah groupka walaalayaal aad ba mahadsantihiin waa bilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم وعليكم السلام سلامة إسلامك مدنية مروبة إنتنا ماشي سبتمي هذا الكيد بدي سوى لو ذيلي أيام فيليا وحبنا نقدر أيام مرجتو وحال مهمة حال كائن نقصي وضلو دنكو دنك رأيين وضلين هاي دن فامليين وضلين هاي دول أهل بينو هاي أهل كي نقدر بيين أنا بالله أيام بدريليا حال كا وجه ده إلى isugu keenay maanta inteena meesha wada fadhida isku meel u baynu ka qanimay marka waxa aad u fiican wixii danteena inaynu ku foofno inagu ma dadka maqan cid kale uma ay maqan marka hadal dalbo meesha waa toorana loo hadlay aran tariyo kama jiro aad buu mahadsantihiin barakallahu fiikum assalaamu calaykum arrimahan aynu maanta u fadhinaa waa arrimihii mas-uuliyaddeeda ay lahaayeen ama madax dhaqameed ha ahaadaan ama dawlad ha ahaadaan ama shacabka guud ahaan dibad iyo gudaba ha ahaadaan annagu waxaanu jeclaan lahay in aanu chapter cusub u furno maadaama aanu dhalinyaro u badan nahay mas-uuliyaddana aan rabno inaanu xilliga iyaga qaadano oo aanu ka jawaabno baahiyaha deegaanka ka jira marka waxa fiican in challengeska cusub iyo dhibaatooyinka cusub wax laga qabto kuwaas oo runtii ay ka mid yihiin shaqo la-aan ay ka mid yihiin tahriibta dhalinyarada ka baxaysa dalka mar walba waxay haytay dee aad ogtihiin dhulka ay ku dhimanayaan iyo saxaraha deegaanada ay u badan yihiin ay kasoo jeedaanna waad ogtihiin wadadan imika raaribul ilaa berbere ilaa raaribul ee aynu gacanta ku hayno dadka degani runtii dhibaatooyin badan bay ku qabeen wadda la-aanta yacniga dad laami doonaya maaha meel baabuur yaroo caadi maro waa dad xitaa wadda raf ah oo ay maraan waa meel u baahan in wax laga qabto waa meel u baahan in la hagaajiyo oo la caawiyo oo loo gudbado runtii aada iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa intii kasoo shaqaysay soo ururinta lacagtan iyo isku dubaridka xafladanba runtii markaad eegto dee dadka inta imika joogtaa wixii ay qaban karayeen ama ay ku dadaali karayeen way ku dadaalaan inaguna waxa fiican
bal baahiyaha jira iyo dhibaatooyinka jira wixii aynu ka qaban karno aynu ka qabanno anigu waan bediyey marka intaasaan kusoo leynayaa السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أبا السلام يا أبو الشرف إيوان يوضايا لي يسوع ربي شيخ عفريت إيوان يوضايا لي المدرسة العسكرية ما توا وإلى الوقت قادنا سيدا يوصل يصل هاي ورو يحيى نفر بدن أنا بقى برس برسنا يوم كان وأنا تغيير يا waxaan u rajaynayaa guul waa in la iska taago oo lala shaqeeyo annaguna waa la shaqeynaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad ururkana aad ula shaqaysaan runtii waanan idin mahadnaqayaa caawan xabiibsanaayo de hadalku iga soo bixi maayo haddaa imaqa weydaana raalli baa iga ahaanaysaan waa mahadsantihiin أحمد أبو ما صدق أحمد ومشرح الدبانة قلاب عملاك الصوماليان أبو مريض كجرة عشاء بكرة متاع كان يقام مقنن يفيس محمد مركا كو بدوني waxaan ugu horeysiinayaa faalmaada markaa faalmaada runtii waxaan umaleeyaa dhowrkii iyo 10kii sano ugu dambeeyey runtii waxaan ku soo koobi karaa afar maaha kaalinta ka qaadatay horumarinta deegaanada reerka hadday noqoto bridgekii burco hadday noqoto jaamacadda hadday noqoto airportka dhisidiisa hadday noqoto baahiyaha kale qofka ee aynu wax taraynay runtii faadimo kaalin muhiim bay kaga jirtay intaasoo dhan cabdisamed ma joogaan أحمد عبد الله محمود chairman كائن حاج runtii هذا كم سو كوبي كروح قبض كي قبضتي وحن مرينا يا chairman كي أحمد باجوجا سكولا بدن دكتور بدن HMC فر بدن أي runtii wax ka qabato runtii waxay noqotay markii ugu horeysay la xusuusto wax qabadkooda runtii cabdisamed oo wada garanaysaan waxa community-ga cabdisamed wuxuu ka mid yahay meelaha qura ee aynu ku shirno marka loo baahdo in wax ta la sii qaado cabdisamed akaanka community-gu ka soo qaada laakiin caawa community-ga ma laan siinine isagaanu sakshahaan u siinay kaalinta muhiimka ah ee uu ka qaatay waxaan u yeedhayaa gaaf ciddii ka joogta Aasiya xaaji حسين علي ayaa joogta shahada waxa la gudusiyay GAF organizations and goal achievement foundations waa urur samafal Fayse Maxamed way maqan tahay runtii waxaan u baahanay cid u qaata Faadimo Maxamed baa u qaadaysaa Faadimo Caasha Bukurnaada u qaadaya Caasha Bukurnaada عاشا بكر يدنا عاوين لما جبتو فاطمة وقاعدة دونتا waxaan u yeedhayaa Saciid Sheekaye oo runtii wadankii ka soo noqday muddo badan ku maqnaa isna inuu kolba xaaladda guud ee deegaanka inuu isaguna eray inaga yiraahdo Saciid
ilaahay xaawiye aadan ayuu abuuray oo qoys baa bini-aadanka aan in yar isdhegaysano ilaahay qoys buu ka abuuray bini-aadanka qoyskii baa haddana noqday qabiil qaran bay noqdeen marka anugu waxaan kula talinayaa dhaqanka soomaalida waxaa jira in reernimadu ay fiican tahay oo ay iscaawiyaan oo ay wanaajiyaan oo ay qaaraanka wada bixiyaan oo qofka aroosanaya kaalada la siiyo oo ka xanuunsanaya loo tago oo way fiican tahay diinta islaamka way ku fiican tahay laakiin sheekadu waxay xumaanaysaa marka ay qolo kala timaado kuwaas xuquuq ma leh xagga waxaa shilaya dhaqanka innaga soomaalidu baysgaraysan yahay in qabiilku is urursado oo isagu ishabeeyo laakiin qolada kale markay timaado waxba isuma ogolaa waayo meel ay ku socdaan baan jirin laakiin wadamadii sidii sheekh mustafa sheegay caalamka islaamka waxa badbaadiyey nimankii badowga ahaa ee qabaayilka ahaa markii muslim loo sheegay muslim baa adduunka o dhan baa mas-uul ka tiiri oo muslimka diinta adduunka gaarsiiya way ilaaweyntii hoose oo ninkii shalay colka la ahaa walaalkood buu noqdo markaan waxaan kula talinayaa is-urursada wax wada dhista wax wada dhaqda gacmaha isqabsada qabaayilka kalena nabadna geliya iyagana walaala ka dhigta oo wanaag halaydinka barto oo dad wanaag laga barto noqda ifkana waa guulaysanaysaan aakhirana ajar baa helaysaan taas waa taa xaggii laygu yaqaanay ahayd majaajirada dee qola inan baaba goor utay xalaqsano lahayd orarta xaasna waa tahay marka heesis maxaad dumarka iyo waxaa ula heestaa bay kutii gabadh baa imika lahayd waa laga soo jeedaa marka waxaan ka sheekeynayaa nin baa wuxuu yidhi waxaana sirbu yidhi wuxuu yidhi saana sii qayilayay baa guurkaba isegay buu yidhi dabeetana marka qaarka la joojiye baa buu yidhi ayaa waxaan u tegey buu yidhi waxaan sii guursooyna baan u tegey buu yidhi fashaajibisa naya I want to marry you. I said, what? Nayna guursan doonaya way ka dhaqaaqday buu mid kaloo Soomaaliya ka timaado tagay buu way diiday mid juuyaa tagay buu way diiday waa soo wada maray markii dib aan ku hablaha Soomaaliya iska badaayo masaajidkan hadda buu I want to knock halal wuxuu yiri Pakistan bay hayro appointment baa laga qabto wax la kaalay masaajidkii baa tagay buu marka masaajidka tagay baa konton baa laga qaaday konton fiya tabatana maalinta baa lagu yiri naagtii waa lagu helay kaalay meel aniga oo fadhiyo oo leeyada ku sug ayaa wax ay tii u yiri gabadhan la yaabay si ay agtay musu are you waiting for me gabadh madowga oo si ay agtay aad yaabay magaasa baa yiri no I want to my mother and my uncle I waiting my uncle walaadkii baa yiri no waa tan gabadhan waa gabadha doonaysay wada hadla waana first lady baa hadlaysa iyada hadlaysa shuruudaha leh waa tagu tiri ka get up why I would check you in the Ahmad Kaptan. What I thought, brother, I have 7 conditions. Yada was a condition. Master told him has why ku aragto u sheeg are you smoking fasan ku yes what kind of marnabore all heroin all I personal headaches 7 back that's no good wait masal I said, are you working? Some good we never ever. How do you live? No, I had my mother and my uncle. No, that's no good. I said, are you married? Some good second wife. I said, where is some all divorced? Why? I like temporary married in 2 months, it's like that. It's like I don't want to you. Some good will thank you. Go with it. waxa kale jirtay sheeko kale oo ahayd inantii Chinese-da inankii guursaday kii ka yarabay hooyadii ku tiri hooyo samatar Chinese-da uu guursaday meel fog buu aaday adigu gooyo balaad ayo kala iikeen inan kula midaba inankii uu carro wuxuu kaasday inan Gabon oo la yiraahdo korokora dhaqadhaqa wasu mama korokora dhaqadhaqa she's my color korokora dhaqadhaqa mama she's from Africa and the Corona made a she also 2 days Muslim, the Bashi tonight. But I want to make a deal of Gursunia in Adan or some Muslim, Shekala. They were trying to do has. Stand to half son. I was getting they were telling do my sock has no garden, has been
كورا كورا داكا داك اي ماذا حبورة تمر ما كنت بتشوفها كورا كورا داكا داك كورا كورا داكا داك مغمدي ميال شري تقال ماذا حبورة كورا كورا داكا داك كورا كورا داكا داك ميال او سيسو شيران كرتا ماذا حبورة كورا كورا تاسروا وتوي إمكا وحدوك صوت هذا البرامج كنا هاس وعيقلنا oo ay waliba ay ku dhaliyeen hablaheenan maxaa Mona Yaasiin iyo Yasmin dubad ayay ku dhaliyay heesta madin qaadaya war hees ugu talagalay in hadafkeenan iyo ulajeedadeenan taageero ummadda taageero waddankeena taageero marka We're
waana muhiim in marmar la isku siisiyo danta guud ee reer waa mahadsan
daaye warkiyo hayga goyn waraaqa warkiyo hayga goyn